okay mahdi waxaan u gudbaynaa hadda su-aashaydii afraad Mhm. waxaa jirtay sanadahan dambe in isbedello waaweyn ay ka dhaceen adduunyada carbeed oo mataqaanaa wadano aan inaga fogeyn marka laga bilaabo yemen ilaa libiya ilaa tunisia ilaa iyo masar isbedello waaweyn baa ka dhacay waxaa la filayay markaas isbedeladaasi inay waddankeenana ka dhici doonaan laakiin haba yaraatee wax isbedelay ma jiro maxaa u sabab ah waxa weeyaan isbedelkan horta magartay adduunka ka dhacay dowladaha carbeed iyo dowladaha muslimka ku istaagaya maaha waad ogtoo maanta suuriya sida magartay u warfanaysa wadaga arkaya dhexdaydu way geli doontaa magartay abudabi way geli doontaa yemen weli magartay ilaa madaxweynihii baa magartay badbaadiyay taagan moogtay adduun weynaha waxa weeyaan nin walba ninkana waktigiisa u dhamaaday ismaaciil cumar ha yidhaahdo magartay magartay dabaysha dowladaha carab taabatayna taaban karto ya way taaban kartaayo sida loo ilaaliyo siduu nool yahay waa la ogyahay cabsidu ku nool yahay waa la ogyahay horumaru dadka gaarsiiyey jirin waa la ogtahay magartay dhaqaalihii inuu baaba'ay waa la ogyahay iskuuladii inay baabeen waa la ogyahay caafimaadkii inuu baaba'ay waa la ogyahay in gaajadii magartay macalool loo dhimanayo moogtay 250 kun oo ummada oo Djibouti oo midkiiba magartay ka hooseeya reydka lagu talagalay bini'aadmiga adug $100 kasta maalintii loo galay ku noqdaan ay magartay ka wariyaan sida awgeed adduunyadu waa arkaya anaguna waan arkaynaa ummaduna way arkaysaa magartay kullayba waxaa la yidhi doqonimo dhiman bay ku faantaa dhinacna waxa weeye doqontii ku taanaysa dima dhiman waxaa kaloo la yidhaha doqoni xaggaa lagu xidhay xusullada ku seetaay hadduu badbaadi lahaa kelmadaha ma garatay inuu ku hadlo horta maaha laakiin kol ma taabanayso anna waxaan laya taabanayso ya marka waxa weeyaan wax cabsi halka kama qabno adduunku isbedelay tii hore maaha lacag bilaash oo lucnay diyaarada waaweyn oo la kiraysto ama la iibsado iyadoo ummadaadi gaajoonayso Djibouti ma laga arkaadee afweynada isagoo ummadiisa cadaadiya ayuu diyaarada Soomaaliya Airlines raaci jiray kani Boeing 767 muuskii ku dhafaa marka been buu isku sheegay riyo ku jira dreaming ma life marka isaga uu talaa sidoo uga bixi doono ma garatay gudubta ummadda uu ka galay iyo bini'aadmiga Soomaaliyeedba iyo kuwa dalka Djibouti marka anagu diyaar baan u nahay ma garatay ninkaasi aan qornaano waaqeeyo out waqtiga ay lagu dhamaaday ya hadda axsaan ku socon weydo xumaan bad ku tagay